بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواada Saafi channel oo aan kaga hadalno waxyaabo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlayaa arrin wax laga soo weydiiyay oo ah fluoride-ka ku jirta maxay to daawada cadayga iyo biyaha. Marka fluoride-ka sida la sheegay oo research badan oo la sameeyay ba ay sheegeen maxay ahayd to waa sun neurotoxin ayaa la yiraahdaa sun inay tahay ayaa loo aqoonsaday hase yeeshee sharciyo la sameeyay 1940s-kii ayaa maxay ahayd adduunka badi uu ku dhaqmaa khaasatan Mareykanka, Canada, qaar ka mid ah wadankan Ingiriiska iyo wadamo adduunka kala duwan ayaa sharciyadaas ku dhaqma oo ah in biyaha tubada aan ka cabno in lagu daro fluoride. ujeedada waxay yiraahdeen fluoride-ka loogu darayana waa maxay to ujeedo baaritaana aan ku helnay oo ah inay fluoride-ka anfacayso dadka ilkahooda oo ay ka hortagayso in dadka ilkaha ay bololaan ilka bololka inay ka hortagto ayaan ugu talagalnay dhaheen sababtaas ay dhaheen ayaa fluoride-ka loo ansixiyay in biyaha la cabayo lagu daro. Fluoride-ka waxa kaloo hadda la ogaaday in lagu daro daawada cadayga. Marka daawooyinka cadayga sida aad ogtihiinba badi waxa ku qoran warning-kaas oo ah digniinta waxay tahay hadii B size waxa way digirtan yar yar oo green-ka ah oo B-ska aan dhahno wax la eg oo fluoride haday dhuuntaada ku siibato calooshaada gasho inaad dhakhtarka la xiriirtid ayay sheegaysaa. Marka waxay ku tusaysaa khatarta ay toothpaste-ka leedahay inay dhuuntaada u dhacdo kugu siibato. khatartaas marka waxay aad u taabanaysaa khaasatan caruurta maxaa yeelay caruurta especially marka ay yar yihiin oo aad toothpaste u marisid cadayga tuf maba yaqaanaan inta badan inta ay tufaan iyo inta ay liqaana badan. marka liqidaas ay caruurta toothpaste-ka liqayaan fluoride-ka leh khatar ayaa ugu jirta caafimaadkooda. baaritaano la sameeyay marka waxa la yiraahdaa haween uur leh 300 oo haween oo uur leh ayaa la baaray fluoride level-kii ku jirtay dhiigooda inta ay uurka lahaayeen ayaa la baarayay. kadib markay dhaleen waxaa la daba galo la baarayay caruurtii ay dhaleen markay 4 jir ahaayeen baaritaana lagu sameeyay markay 6 jir ahaayeen baaritaan kale lagu sameeyay markay 12 jir ahaayeen baaritaan ayaa lagu sameeyay. saddexdaas goor ayaa caruurtaas la baaray. baaritaankii marka waxa lagu ogaaday in caruurta eriyooyinka fluoride-ka leh biyaha fluoride-ka leh eriyooyinka caruurta ku nool inay ka caqli yar yihiin 5 goor inay ka caqli yar yihiin ama IQ-gooda uu hooseeyo ama maxaan dhahaa ay ka doqonsan yihiin caruuraha aan biyahooda fluoride-ka lagu darin. marka fluoride-ka ilmaha waxay ka dhigtaa doqomo IQ-gooda ayaa hoos u dhaca. IQ level-ka ilmaha waa low marka ay biyo fluoride cabaan. marka fluoride-ka xitaa hadii aad tiraadid aniga ilmahayga fluoride-kan ka ilaalinayaayo biyo filtaraysan guriga ugu rakibayaayo maxay ahayd toothpaste fluoride free ayaan u soo iibinaya xitaa hadaa tiraadid waxay ila tahay dagaalka inuu intaas ka culus yahay oo aan fluoride-ka aadan kaga carari karin toothpaste aan soo iibsanaya fluoride free biyo fluoride-ka ay meel walba taalo sida haddaad restaurant aadid oo kale ama cafe ama shaah ka dalbanaysid ama cabitaan maxay to supermarketada cabitaanada la yaala smoothie-yaasha waxyaabahaas oo dhan cuntooyinka restaurant-nada yaala qofna cuntadaada biyo filter garaysan ama cabitaanada biyo filter garaysan kuuguma sameeyaan dadka biyaha tubada isticmaalayaan. marka biyaha tubadana fluoride ku jirta wadamo badan horta Mareykanka u badan meesha fluoride-ka lagu isticmaalo oo biyahooda fluoride ku jiraan. fiidyoowgan link hoos waxaan idiin soo gelin doonaa YouTube video ka hadlaya arrintaas oo America ku saabsan. Canada waa isticmaalaan, Australia waa isticmaalaan,
wadamo badan isticmaal gadaal idinka sheegi doona wadamada isticmaalay wadamada aan isticmaalin wadankan ingiriiska waa la isticmaalaa boqolkiiba 10% ayaa meelaha eriyooyinka fluoride-ka biyaha laga isticmaalo ku nool dadka population-ka ilaa 6 milyan dad ahaa lagu qiyaasay dadka biyaha fluoride-ka lagu daray isticmaalo sababta ay dadka biyahaas fluoride-ka lagu daray ee eriyooyinka qaar u leeyihiin waxay tahay research dawladda samaysay dawladda marka go'aanka noo gaadhay annaka research-day samaysay waxay heshay in dadka eriyooyinkaas ku nool ay ku badan tahay tooth decay wax la yiraahdo ama ay ilkahooda ay bololaan ilkahooda marka dadkaas waxay u badan yihiin la yiri ilkahooda bololaan dadka faqiirka ah cunto sax ma cunaan caruurta macnihii ilkahooda ma xanaaneeyaan biyo cabitaano badan oo macaan iyo sonkor badan ayaa jirkooda gashay iyo afkooda marka arrintaas waxay koos garaysay in dadkaas ilkahooda ay burburaan oo bololaan iyagoo yar marka dawladda marka ay dentistayaasha ay arkaan area maxay ahayd caruurihii areadaas deganaayo dhan markay 5 sano 6 sano gaaraan ba ilkihii bololayaan oo laga gurayay ilkihii marka waxaan waa system reporta la bixinaya local health organizationska ayaa informationkaas helaya local health organizationskana sharciye ayaa jira wadankan ingiriiska markaan ka hadlayo aan wadamada kale ma aqaan wadankan ingiriiska water act waxa la yiraahdaa jira oo soo baxay 2003 oo power siinaya local health organizationska hadii ay areadaada arkaan in caruurta uu tooth decay-ga ku badan yahay local health organizationska waxay amar ku siinayaan kambaniyada biyaha supply gareeya areadaas in areadaas biyaheeda fluoride lagu daro si loo difaaco oo ciyaalkan waxay leeyihiin iyaga waa sida ay leeyihiin in caruurtan laga badbaadiyo inay ilkahooda bololaan maxaa yeelay waxay dawladda ku aragtaa inaa khayral mas'uul tahay oo aadan ilmahaaga aadan controli karin ilkahooda iyo waxa u keenaya inay bololaan waxa ilmaha ilkahooda inay bololaan keenayna waa laba arrimood waa baxay too cabitaanka sonkorta ka buuxda suuqa yaala oo ciyaalka markay badsadaan hadaanay si fiican uga cadaysanin ilkaha bolol keenaya labo ilmaha hadaanay ilkaha si fiican u cadaynin oo aadan ku jeegaraynin taasna bolol ayay keentaa marka areadaada marka dawladda ay ku label garayso in dad khayral mas'uul oo faqiir oo aan waxba ogeyn ay ku nool yihiin waxay arkaan la cunayo waxay arkaan la liqaya dawladda marka areadaas biyaheeda way fluoride garaynaysaa si NHS-ta ama hay'adda caafimaadka wadankan ay lacag u save garayso maxaa yeelay caruurta marka ilkaha wada bololaan oo dhakhtarka la geeyo dawladda lacag ay khasiraysaa marka si waxyaabahaas oo dhan looga hortago waxaa dawladda u sahlan marka biyaha inay fluoride kuugu soo qasto oo ay fluoride prescription ku samaysaba ay tirada areadaas dadka ku nool they don't even know sida ilkooda loo brush iyo sida afkooda ay u xanaaneystaan ma yaqaanaan marka biyahooda waa in fluoride aan ku darnaa marka saasay marka sheekada fluoride-ka ku timiday marka fluoride-ka waa la dagaalami kartaa laakiin waxaad kula dagaalami kartaa toothpaste-kan maxaa la dhahay bahalkan lagu cadaysto oo aad fluoride free ka dhigatid gurigaaga oo aad biyaha filter garaysid cuntada suuqa iyo cabitaanada sonkorta leh oo yaraysid ilmahaaga ilkahooda oo aad xanaanaysid markaad waxyaabahaas oo dhan la timaadid fluoride-ka jirka galay waad yaray kartaa maxaa yeelay fluoride-ka inuu jirkaaga galo not only ilmahay IQ-gooda hoos u dhigtaa doqoma ka dhigtaa ma aha waxaa kaloo la sheegay fluoride-ka inay ka dhigto dadka maxay ahayto oo dad baa research iyo waxyaabaha internetka ku jira ay leeyihiin dadka waxay ka dhigaysaa obedient inuu dadka macnihii wixii la rabo lagu shuban karo oo wax walba ay okay leeyihiin oo wax walba ay rumaysanayaan arrintaasna waa IQ-gaaga inuu hooseeyo ayay ka soo jeedaa maxaa yeelay haddaad caqligaaga aanu si fiican u shaqaynaynin dan cidii doontaa kugu shaqaysan karta marka maxay ahayto maxaa la health problems kale leedahay wadnahayna u fiicneen thyroid-kaanay u fiicneen waxaanay u fiicneen maxaa la dhahayay waxay koos garaysaa ilaa fluoride-ka markay jirkaaga ku badato skeletal fluorosis waxa la yiraahdo skeletalka waxa waaye qalfoofka qofka like qalfoofka lafahaaba oo dhan
markay fluoride-ka ay fuusho waxay keenaysaa xanuun lafaha ahoo meel kastoo laf jirka ku jirto dhan inay ku xanuuntay keeni kartaa. waxay kaloo keeni kartaa xanuunada kaliyaha ku dhaca. waxay keeni kartaa early puberty oo ah xagga gabdhaha inay iyagoo yaryar qaangaaraan baaluqaan. waxay keeni kartaa low fertility inuu fertilitygaaga uu hooseeyo oo rag iyo dumarba ay u keeni karto. xanuuno badan ayay keeni kartaa. waxaa suuragala la yiri inay fluoride-ka ay ku lug leedahay caruurta ADHD-ga qaba inay fluoride-ka ku lug leedahay dhici kartaa la yiri. marka maxay ahayto hadda waxaan idiin sheegayaa liiska wadamada adduunka oo dhan ma sheegi karo laakiin wadamada Europe iyo North America waxaan idiin sheegayaa liiska wadamada biyaha fluoride-ka aan lahayn. wadamadaas waxaa kamid ah China, Finland, Norway, Denmark, Sweden, the Netherlands, Hungary, Japan, Croatia, Greece and Mexico. wadamada fluoride-ka caanka ku inay biyaha ku qasaan waxa way Mareykanka u horeeya, Australia, Northern Ireland, UK oo qayb kamid ah. wadamadaas aad ay fluoride-ka looga isticmaalaa. marka maxay ahayto fluoride-ka waa sun. marka waa inaad ka taxadirtaan. toothpaste-yadan for example hadda toothpaste-yadan oo kale haddaad isticmaashaan baraanadan ma xayeysiinaya aniga laakiin waxaa jira baraano caan ku ah markaa health food store-ka tagtaan aan fluoride lahayn waa yara qaali. waxaa jira oo kale haddaad rabtid toothpaste aad adiga gurigaaga ku samaysan kartidna waa samaysan kartaa. haddii kale kuwaas fluoride free-ga ah at least waa yara qaali. haddaadan awoodin xitaa waxaad yeeli kartaa caruurta yaryar ka fakar caruurta usoo iibitaan fluoride free-ga ah. adigana maadaama aanay kugu siibanayno aad iska tufaysid toothpaste-ka caadiga isticmaal laakiin caruurta definitely waa la sheegay inta badan way liqaan toothpaste-ka. marka toothpaste fluoride free ah caruurta usoo iibi. waxaan rajaynayaa fiidyoowgan inaad ka faa'iideysateen. haddii aad ka faa'iideysateen thumbs up, subscribe gareeyana. haddii aad wax comment qabtaana xagga hoose iigu soo qora. waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad fiidyoowgan la share garaysaan inta aad jeceshihiin si ay iyaguna uga faa'iideystaan. wassalaamu calaykum waraxmatullah.